ولبا بقول أو عسكري أو كم إذا عيدمada maamulka Jubbaland ee ku sugnaa deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubbadhoos waxay shaaciyeen inay maanta si rasmi ah uga mid noqdeen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay go'aansadeen in aysan dagaal gelin oo ay ku biiraan ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa warbaahinta la hadla taliyahood waxa uu sheegay dhowr iyo 10 sano oo ay halkaas ku sugnaayeen inaysan helin xuquuqdii ciidan oo ay u baahnaayeen ee mushaarka ahayd inaysan haysanin dhaqaatiir daaweysa xarumo caafimaad oo lagu dabiibo iyo sidoo kale inaysan helin gaadiid ciidan oo ay ku dagaalamaan iyo wixii kale oo agab ay u baahnaayeen noloshooda waxay sheegeen inay kaliya u joogeen halkaas ilaalinta deegaanka ee dadka ay ka soo jeedaan laakiin aysan arkin nidaam dawladeed ama maamul oo garab istaagay dhowr iyo 10 sano oo ay Kulbiyo ku sugnaayeen taliyaha ciidankaasi hogaaminaya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay uga baahan yihiin in laga mid dhigo ciidamada qalabka sida ee qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale inay qaateen go'aan ah inaysan dagaal gelin oo ay dadkooda iyo dalkooda u shaqeeyaan waa kan taliyuhu hogaaminayay 200 ee askari ee ka tirsanaa ciidanka Jubbaland ee daraawiishta ah ee ku sugnaa deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubbadhoos oo warbaahinta la hadlay محمد عبد الرحمن يسراجيشي محمد فكرك دولة الدحى أنا وأنت أسوسن لنا جبلان أنا كحيمين عبد برستمال ولا عباية راتب كنا علينا إن $100 كينيا $100 كينيا ومش هتنوع أنا تنوع لي وهذا نوع نقطي هنا دولة الدحى فدرالك ويدا الصوماليات هنا كبير هذا نوع نقطي عقباتنا كم سيشيل كنا صدق طبعا جنا عقبات كتير قارن ما هيسنو جديد ما هيسنو دكتور ما هيسنو هاي البيوت ما هيسنو معك عنا ورا لان تو حنا وكلفتي هنا نخرج بيرنو بدل الصوماليات صوماليا 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 عجبتي